isaga kuwabaale wayahaataya maanta si wanaagsan u ciida wayahaataya maanta si wanaagsan u ciida waana la yaabi doonaa insha Allah bismillaah رمضان الكريم أصحابي ملو بجوكتان عيد ونكسم وسكين دبديجنا ماشان وحاب جوجان فنانينتي ريم مقدشو فنانين تمرتضى نوعه نتمنى شاد يولالك أحمد عرشه أنا جو كلا حرين بانسكو جوجنا وحنا جوجنا ماشى وقرح بدن مقدشو قلت أنا وحنا كسور دوينا ده أنا هذا البدن مقرنا أوريالي agaasimaha وليب agaasimaha ku soo dhaweynaya agaasimaha ku soo dhaweynaya Yuusuf Xaybaro wakana Rahmaan Rahiim Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan leeyahay Ramadaan Mubaarak caawaad baan ugu faraxsanahay inaan la joogo fanaaniin aad u qiimo badan oo isugu jira fanaaniinta Muqdisho iyo labadii fanaan martida noo ahaa Nisma Nashaad iyo walaalkay Axmed Arshe farxad bay noo tahay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo fanaaniina oo reer Muqdisho oo aniguna aan kamid ahay maadaama aan 5 sano u dambeysay Muqdisho joogay reer Muqdisho aan imaka inkastoo markii hore reerkiisa isku ahayn laakiin hadda qolada Muqdisho ku jira waxa la horta koow soo dhawaada horena waan idin soo dhaweynay haddana waan idin soo dhaweynaynaa waxaan halka u taaganahay inaan shaacino showga maalinta Ciidda ka dhici doona magaalada Muqdisho habeenka Ciidda ka dhici doona magaalada Muqdisho oo aan runtii ku farxad gelinayno ku soo dhaweynayno iyaguna waqti kula qaadanayaan dadkoodii jeclaa ee reer Muqdisho Axmed Arshe iyo Nisma Nashaad dadaan hadda idin barayna maaha faahfaahin iyagu uma baahna laakiin kaliya waxa faahfaahin u baahan maxay qabanayaan xagee wax ku qabanayaan muhiimadu waa inta fanaaniin badan ba hadalka iga dambeyn doona dadka reer Muqdisho waxa leeyahay habeenkaasi waa habeen qiimo badan yaan lagaaga sheekaynin iyo ku dhaafin waa fursad qaaliya wax laga yaabaa inay sanad kugu qaadato inaad mar dambe aragto Axmed Arshe iyo Nisma Nashaad dad badan baa runtii jecel oo reer Muqdisho oo aan dareemi karayo ilaa hadda dadka qaarkiis oo weydiiyanayaan goormay wax qabanayaan goormay wax dhigayaan dadna waxaan saadaan Ramadaanta dhexdeeda ma sheegtaa maanta Ramadaanta dhexdeeda wax dhigayaan laakiin suurtagal ma habeenkaas aynu wada dabaaldegaynaa farxad bay runtii tahay inaan walaalahay caawa halka farxad kula qaato halkan quruxda badan ee aanu caawa joognaa waa Goljanno oo runtii aan waqti fiican ku qaadanay kuna sii qaadan doono soo dhawaadaan leeyahay showga inoo balama reer Muqdisho waxaan ku soo dhaweynayaa markan abwaan Cabdiqani Garka dhamaan horta asxaabta meesha wada joogto waan salaamayaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka xigta caawalka waxaan isku nimid dhamaanteen waa soo dhaweyntii oo mar labaad marka koowaad maaha mar labaad ma noqon doonto mar saddexaad ma noqon doonto insha Allah waa walaasheen Nisma Nashaad iyo Axmed Arshe anigu waa walaaladii waa gabdhahayga weeyaan marka waxaan rajeynayaa insha Allah habeenka Ciidda reer Muqdisho reer Banaadir inay gobonimada lagu yaqaanay bartiga qsoorkii lagu yaqaanay inay muujiyaan insha Allah waana iyo habeenka Ciidda farxadan caawa farxad baa ka sii dambeyn doonta hadii Ilaahay ka raali lahaado Ilaahayna kuwii nabad ku gaadhay naga dhigo wixii energy ama hadal aan habeenkaas aan u dhiganaya aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa farxadda kulanka weyna farxadaysan deeymka waxaan ku soo dhaweeyaa shababoy alla sida la sheegay ku daro nin fuad leeyahay wuxuu yiri nin waligeedba wala heesayay wali ma dhacday buu yiri nin dumarkii Soomaaliyeed intuu fariista hadana kiciya ilaa iyo koow ka soo hadaba ninkii dawaan horta waan aad nooga wada cilmi badan oo balsadhow waa idin salaamaya dhammaan Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan kurti kulli waa naga waa meel walba aad joogtaan barnaamijka waa naga qayb qaadanaysaan kuwii indhaha nagala socdo kuwii dhagaha nagala socdo kuwii nala joogo inta barnaamijku way naga qayb qaadanayaan barnaamijkaas Ciiduna dhacaya te fanaaniinta hore sa idin kugu sheegay nimankan hadalka waa ka hormarsadee waxa waa laba mar hore u soo hadlay ma fahanteen hadda habeenkaas Ciidda ah Muqdisho waxa la rabaa inay Muqdisho kala noqoto way noqonaysaa insha Allah maadaama dad shartooda iyo khayrkooda boota isugu imaadeen meesha ya wala kala kicina insha Allah buniyo u sameeyay loolna waa kana malaha saar baahaye habeenkaas dadkii waxa duulal qabiy way imaan karaan way fasaxan yihiin السلام عليكم دمان ummadda Soomaaliyeed marto ugu horeen wada salaamay dhamaatood meel kasta joogan
waxaynu balna habeenka showga maxay hotel sahal iyo cidii saar jacayl saar music saar faneedo dhinacdu hay insha Allah habeenka sinaanis dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair waxa caawa aan farxadeena meeshan aan u imaanay afurkii soo dejinay walaashayna Nashaad walaalkay Axmed Aasha inaan aan showgooda iyo barnaamijkooda ka qayb galno waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed inta muqdisho joogto dhammaantiin farxadda walaalaheen waa inaan nagala qayb gashaan adduunka soo camirtaan laga dareemo waa inaan Hargeysa iska bareegeynaan faanteen markii fanaaniinta ay Hargeysa tagaan sida loo soo dhaweeyo waa aragnaa waa inaan Hargeysa aan sanadka aan busnaa aan dadkaan aan sidaan saayana hala yaabo in barnaamijka waxa lagu qaban doonaa hawlka sahal lagu qaban doonaa farxadda ay tan badisay dhammaantiin waan islaamaya waxaan leeyahay walaalay mar labaad iyo saddex soo dhawaada ciid mubaarak waxa weeyaan fanaaniinta halka taagan waa intii qalbiyada la hadli jirtay inta dhagihii maqlaa kama dhaqaaqaan waa inoo habeenka linoo shaaciyay leeyli waa sahal iyo habeenka iidka anu ayuutaan u sii galay badda sida $10 iska وانا iga diyaartay heestaa sameysay ma taqaan farxad waa aniga araarta ku galo farxad baan isilaawaya anu ayuutadu waa iga diyaar mar haddii idinku aad markii horeba aad darajada milyanka garbahooda ugu tasheen inta habeenka hortiina iman doonta Axmed Aashe iyo Najma Nashaad ay hogaaminayaan Xamza Bilan iyo Sharma Boy ay kamid yihiin fanaaniinta kale reer Muqdisho Xaybariya Bilkhayr iyo ay kamid yihiin lamaanuhu soo marka iyagu mudnaanta ma leh intii aad noqon lahayd looga sheekeeye waxaad noqotaa goob jooge isagu dib uga sheekeeya habeenka ayaan lagaga sheekeynin adigu dadka dib uga sheekeen aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal waa inoo showga fanaaniinta Hargeysa iyo fanaaniinta Muqdisho maalinka ciidka habeenkeeda iyo sahal habeenkaas waxaa waaye Faransiis xataa waa soo wadaa war waa dhaarsanahay doqtuga soo socota maanteen habeenkaas habeenada aniga kaliya ma fanaaniinta laftirkooda waxa waa 2021 waa la galay macnaa fiiriya waxyaabo badan isku fiiri waxa waa iid waaye 2021 abu hadana fanaaniinta isku imaade war imaade la idinka bas aniga mataantada jacaylana waan soo wadnaa salaam ya meel kasta daafaca caalamkii dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan farxad meelan istaagnaan la'anahay asxaabteena fanaaniinteena kuwii reer Muqdisho iyo fanaaniintii reer Hargeysa Najma Nashaad iyo walaalkii Axmed Aashe waxaan la soo dhawaada habeenkii habeenada showgishooyada inaad ka xuntahay waa macquul laba joog waxaynu balana habeenkii Aashe iyo Nashaad habeenkii habeenada habeenkii libaaxyada oo habeen isku baran doona haduu Ilaahay ka raal noqdo habeenkaas aynu balana ay sahal hol adan idin salaamaya dhamaantiin السلام عليكم ومدة صومالية ميل بوجوكتين مركل رمضان كريم عاو فنانين تويديهين عدانا فنانين تري مقدشو وحانو تاغن هاي ولالدين نو إمادي إن مرتدو نو هابين كاس برامجكا إن شاء الله تعالى والله يابي دونا كهوري aad baan u salaamayaa asxaabta halkan nagu soo sharfay fanaaniinta bahda fanka saxaafada waxaan leeyahay runaantii horta farxadeeda lama qiyaasi karo sidaad noo soo dhaweyseen waxaanad ka turjunteen sharaftii iyo karaamadii iyo soo dhaweyntii lagu yaqaanay magaalada Muqdisho oo ah magaalo ummadda Soomaalidu ay u siman tahay wallahi farxadeeda lama soo koobi karo de anigu waxaan leeyahay waa inoo habeenka insha Allah iyo sida aad noo soo dhaweyseen ilaa iyo bilowgii maalintan airport ka soo degnay ilaa iyo habeenkaas waxa leeyahay hawshu way socotaa wali intii hore anagana soo dhaweynayseen laakiin habeenka idinka iska leh idinkaan idin heesaynaa idinkaan waqtigeeda la qaadanaynaa maadaama magaalo kale ka nimid oo wali aanan magaaladan joogi jirin amba waxba ku qaban jirin waxaan leenahay waa inoo habeenka aad iyo aad baad mahadsantiin aan si yar araartay la naag weyn baan ahay farxad baan islaawayaa muxibba aawadeed
aad iyo aad bay mahadsan yihiin dhammaan asxaabtan garbahayga taagan hortayada taagan iyo fanaan kasta oo iman doona meeshan waxaan ku anagu waxaan u nimidba muxibbo faneed baan u nimidnay anagu maasha Allah aad bay mahadsan yihiin dadkan soo dhaweeyay walaalaheena na garab taagan waxaan iraahdo kala ma garanay waxaan leeyahay wax walba oo baashaala iyo farxad iyo muxibbo faneed iyo waxaan ku ka cafadhiista iyo waxaan ku celi bajaajtaba habeenkaasi nootay insha Allah aad baad mahadsantiin waxa weyn hoolkuna Sahal Hotel waa maalinta xalwada cuntaan habeenkeeda sida caadada ahayd halkan waxaan ku soo gudbinaa goobaha kala duwan tigidhada insha Allah dilaa ka dhigo ugu horeyn saak barbier oo ku yaala iskuuska dabka xayiday xarumaha Astaan TV insha Allah inta kale xarun kasta ay kala leedahay Astaan TV inta kale waa mahadsantahay waxa sidoo kale aad heli kartaan carwo xarago xaraga shopping center oo ku taal iskuuska dabka gabdhuhu way yaqaanaan aad bay u yaqaanaan team xaraga hadaan is ognahay waxa kale sidoo kale aad heli kartaan boqorada qurxinta dumarka beauty salon qaybteeda banaadir iyo qaybteeda dabka labadaba waa heli kartaan waxa sidoo kale heli kartaan carwo ugbaad heli kartaan nambarka tikidhada noogu qoran waa nagala soo xiriir kartaan anagana si insha Allah ku qanacdina idinkaga soo jawaabi doonaa meel walba jeceshiina waa idinku keenaya marka waxaan idin leenahay habeenka ciida iyo hool Sahal maalinta ciida habeenka hoolka Sahal iyo muxibbo faneed ummadayda aan la ciidi doono si wanaagsan inagoo muxibbaysan reer Muqdisho gobgobada shayaadaan islaamada waxaan leenahay sidii aan uga baranay in ku naqaanay goobtan ugu nimidnay ayuu baan ka sugaynaa insha Allah habeenka ciida madaxdu saaratiin aadiyada hoolkuna waa hoolka Sahal waxaan ku riyaa la moogaan oo laga maqnaan shaashada